waxaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta lagu soo dhaweeyay ciidamo ka soo goostay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaana ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Cabdulle Gargaar taliyaha qaybta booliska gobolka Sool iyo saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliland ee gobolka Sool ugu horeyn halka waxaa ka hadlay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ka soo goostay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland anagoo ka nimi shalay galab godqabo aanu ka nimi waa soo wareegnay intaana waxaan aad iyo aad baan isu seef garaynayno aad u taxadiraynay meeshana anagu waxaan leenahay dadka jooga waa la qalday ha ka waantoobeen wixii loo sheegay waxa propaganda ahayd wax yaalana meesha ma jiraan dantayada iyo dadkayga aan soo aadnay timayay Puntland iyo waxbaan loodayaa markaan yaan tagnay waan ogaanay inay meesha waxba ka jirin sida darteed waa iskaga nimacaanu markaan aragnay meesha inay ka bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa ciidan ka soo gadooday Puntland markii horena ahaa ciidan Soomaaliland oo la khalday abtirsiinyo been loo sheegay kadib inay waad aragtaan indhihiina idin macallina ulbaan la hortaagnaado meelay maraan bawaan markii dabcaan inay soo tagaan habbo cabay ka fata baxeen hawd bay ka soo wareegeen haddana waxaanu kaga hortagnay aaga yeele oo aanu hadda ku suganahay oo joognaa aad lagu aragtaan halkaas baan ku soo dhaweynay waxaanu leenahay ummadda yaan la khaldino yaan la lugoyn kani wuxuu ka soo baxay tuulada la yiraahdo Godqaboobe ciidanka aaga hore soo fadhiya ee Puntland buu ahaa ee dagaalka loo diyaar gareeyay ciidan beeleedada dhulbahantee la khalday buu ka mid ahaa halkaas muddo badan dayac ugu oodnaa markay damceen inay ka soo baxaan wada ay ka baxaanba waa loo diiday waxay mareen hawd boocamay ka baxeen hawd bay ka soo wareegeen iyagoo inta cararayo oo meelay ka baxaan la ciidankaas oo aad indhihiina ku aragtaan diifta iyo dayaca ka muuqda oo dad ku danaysanayay oo muddo badan halka ku dayacnaa aad iyo aad baan u salaamaynaa una soo dhaweynaynaa walaalaha iyaga lagu soo biiray ee sharafta leh ee karaamada leh ee maanta noo yimiday konton askari oo socdo oo teknikadoodii wata ayaan la hela aad iyo aad baad ka mahad celeynaa idin xisaab jirtay maanta adigu wacanti iyaga xoolal ma yaxonaya dadka dibdib ha u geysanin inta hore ku filan wax dambe dadka hayeen iyaga inta wax ugu darimay idinka dalkiini beedin baahno dadkiini beedin baahno gobolka idin baahno maamulka gobolka idin baahan ciidankan idin soo dhaweeyay idin baahan Khadar Maxamed Abdi Badacas 24 TV deegaanka Saxdheer ee gobolka Sool